marka hore waxaa ilaahay mahadiya inaan safar dheer ka bacdi dib ugu soo noqday magaalada Kismaayo oo hadda waa xarun gaara Jubbaland waxaana rabay inaan guud ahaan ka warbixiyo socodkii soo galay oo ku saabsanaa wadahadaladii magaalada Addis Ababa wadahadalka kula dowladda federaalka Soomaaliya واسمه wadahadal wuxuu ahaa guul ku soo dhamaaday iyo wixii kale noo soo qabsoomay iyo waxa hadda hor yaala guud ahaan waxay ahayd muhiimadu wadahadalkaas muddo dheer ka bacdi wadahadalkii socday oo ahaa mid xaqiiqahan taariikhi ah inuu ku soo dhamaaday si guul ah iyadoo labada daraf wada hadlay ay ahaayeen dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulkii ku meel gaarka ahaa ee Jubbaland juhdi badan sabir badan isu tanaasulaad badan oo labada dhinac ay la yimaadeen dhanka kalena ay aad ugu mahadsan yihiin dowladaha igad jaar markaa dowladda Itoobiya ay ahayd gaar ahaan wasiirka arrimaha dibadda oo aan isleeyahay wuxuu ka qaatay door aad u muhiim oo shariif juhdigaasoo dhan markii la isu geeyana ay sababtay inay dhacaan heshiisyadii taariikhiga ahaa ee ka dhacay Addis Ababa waxaa kaloo aad ugu amaanan xaqiiqa ahaan marka laga tago intii wada hadlaysay iyo dowladda Itoobiya oo igad markaas jeer ahaan ka ahayd madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh oo isaga laftiisu aan marna ka bixin khadka isagoo dardaarankiisa oo ahaa inaan lagu kala tagi karaynin iyadoon heshiis la gaarin waa isleeyahay waa wax u baahan taariikhaan in loo xuso waa laga yaabaa dadku inay aad isu weydiinayaan oo la leeyahay sidanaa la yeelay hadda markaan waxaa aad reer Jubbaland waxay ka hadlayaan ka mid ahayd laankii baa laga tegay iyo madaxweyne laga tegay oo magac kale loo bixiyo dadka ayna luqad ahaan u garanayn wax badan baa laga hadlayay laakiin waxaasoo dhan waxaan isleeyahay wax kastoo laga tanaasulay in dadka dalka iyo ummadda loo tanaasula waa shay min ad-diin inaan laan ka tagno inaan laan ku darro midna macno ma samaynayso waxa macnaha samaynaya waxay ahayd in wax dadku ay leeyihiin oo la isugu kalsoon yahay leedo annagu ase Jubbaland ama Juba administration markii la yidhaahdo waxaan faa'iidada koowaad aan qaadnay waxay ahayd in khilaafkii iyo colaadii iyo propagandadii faraha badnayd iyo mushkiladii annagii dowladda naga jirtay meesha ay ka baxdo maamulkiina uu noqdo maamul la aqoonsan yahay international iyo cid walibana ay la tacaamulayso cid walibana ay wax la qabanayso wax kasta oo dowladda dhex ku xidhnaana maanta ay tahay wax furan xaqiiqahan waa wax aan is leeyahay guul bay ahayd taariikhi ah dadka Soomaaliyeedna waxay u ahayd arrin horumar leh waayo dadku dowladda lafteeda hadda waayaan shaqo kale mayna qabanayaan shaqadeeda ugu badan waxay ahayd Jubbaland iyo Kismaayo maxaa ka jira lana dadkana nin kasta rootiisa wuxuu rabay inuu Kismaayo kula daarto marka hadda filimkaas waa u istaagay Soomaa waa sheeko intaa ku dhamaatay hadda rooti damo meel lagula daaran iyo Kismaayo kula soo dhuuqaya maraqa iyo waxaas waa sheeko laga tagay maanta waxaa laga wada hadlay dan Soomaaliyeed maxaa systemkii federaalka ahaa seen horumarina gobolada kale dhiman xageen ka qabana waxay la tahay halkaasay asalku hadda waxayna bilow taariikhi oo noqotay dhamaystirka systemka federaalka ee dowladda lafteedu waa la xamanayay waxa lagu xamanayay caalamka dowladda federaalka ay diideen tahay oo ka horjeedaa laakiin ragii meesha galgalashay ku jiraan xilafur bay ku dhawaayeen inay federaalka rumaysan yihiin in federaalka la dhamaystiri in waxa federaal lagu dhamaynayo iyada lafteedu halkaas hadalku maray iyada lafteedu markaa waan u cudur daarayna sababta hadda waan isla soo qaadanay federaalka in la dhamaystiro deegaanada kale iyo qaabkii loo dhamaystiri lahaana waxaan u maleynayaa dadka deegaanadaas ku dhaqan iyo dowladda u taala qaabkii dowladuna ay ugu fududayn lahayd sidii loo qaban lahaa iyo sidii la yeeli lahaa waana soo dhaweynaynaa marka waxaan isleeyahay guud ahaan shirkaasi wuxuu ahaa shir nabad ku soo dhamaaday heshiis taariikhi ah buu ahaa ma aha inuu Juba iyo Muqdisho iyo dowladda iyo Jubbaland kaliya ay tahay laakiin wuxuu ahaa mid taariikhi u ah Soomaaliya
taan isla qareynana waxa weeye hadday istaagto colaadda iyo jubbooyinka dhibka ka jira iyo waxa laga tirinayo dhowr iyo 20 sano Soomaalida inta kale oo dhan way degi lahayd xaalad kalena kama jirteen dhib kalena ma yaaleen mushkiladuna way degi lahayd dhibka Soomaaliya iyo meesha laga shidayo intaas ahayd waan rajaynayaa markaa in arrintaasi ay noqoto mid taariikhi ah dadkuna ay ku dayasho badan ay mudnaan doonaan midda kale waxaa in badan dadku reejibooyinku aad isu weydiinayeen waxaa la yidhi maamulkii waa la dhisi leeyahay maxaa loo dhisi waayey horta waxa loo dhisi lahaa waxay balaa dawladda meel isku ogaan iyadoo colaad iyo dab kugu shiday propaganda kale laga reebo waxaa wadaadku malaha dagaalku ku dhaamay maamulka ma dhisi yaqaan waxa lama dhisi karo inuu dhisi kari leeyahay waa xantay ka mid ahay waxaasoo dhan marka annagu intaan la sugayna waxay ahayd in dawladda iyo annaga oo wax ku heshiisa iyo tallaabaan qaadi karayna iyo wax adinaan uga guuyo waan soo gaarnay marka haddii kadib wax la dhisi waayo markaa dadku waxay sheegayeen baa soo baxaysa laakiin haddii dee hadda wax la dhiso waa wax cadow meesha yaala marka maamulka waan dhammaystiraynaa waxaa weliba idiin sheegay inaan muqdisho lafteeda tegayno dad badan oo reer jubbooyinka abaa waxay aada uga hadlayeen iyaguna muqdishoa la joogaa xaggaa dadki jiraan meesha wax laga dhisaya muqdisho maaha waanu tegaynaa wixii reer jubbaland waan soo qaadaynaa sababtoo ninkii xildhibaan dooni halkan u aadi maxaa le ninkii xoolo dooni xamara aad miya ninkii xelo dooni xamara aad ninkii masab ka raba jubbooyinka halkan u iman ninkii xoolo ka raba halkan u iman ninkii xildhibaannimo ka raba halkan u iman waan soo kaxaynaynaa inta xamar inaga jirtana waanu yeedhaynaa waan keenaynaa halkaanaan wixii wadahadal iyo xaaja insha allahu ku dhammaystiraynaa ninkii xildhibaan dooni odaygii dhaqankiisiiba u iman doonaa markaa xamar waan tegaynaa waan rajaynayaa weliba waktigan ugu soo horeeya ugu dhowaadda madaxweynuhuna inuu iman doona haddii ilaah yidhaahdo markii ugu horreysay iyadoo markii horeba ayna cidi u diidayn haddana madaxweynuhu isaga lafsa ka mashquul ahaa laakiin hadda waan soo jiidaynaa hadduu mashquula xataa waan keenaynaa kismaayo imanaya haddii ilaah yidhaahdo sidaas waxaa ku dhammaanaya sheekadii iyo warkii la kala wadwaday ee xamar iyo kismaayo iyo rootigaan sheegaya maraqii halkaasuu ku dhammaanaya haddii ilaah yidhaahdo marka waxaan is leeyahay safar guula buu ahaa waxaan rabaa reer kismaayo inaan iyagana ugu daro iyo dadka reer jubbooyinka way dhammaatay waktigii tiiha aan ku jirray ciidanku weji buu qaadan doonaa dadweynuhu weji bay qaadan doonaan odayaasha dhaqanka arrimaha bulshada wax walba waan ka hawlgelayna ma aqbali doonaa fawdo dambe iyo isjabajiitan iyo in la sameeyo shirarna magaaladaan ku qabanaynaa siminaarraa bilaabmaya ciidanka waan tababaraan u furi doonaa waa kala habaynaynaa wax badan oo hadda ka hor aan dejinaynay oo lalahaanba dadka aan soo waxayn iyo wixii hadda ka dambeeya system iyo maamul iyo nidaam baa lagu shaqayn doonaa haddii ilaaha yidhaahdo marka taas yaan iyadana kusoo ururin doonaa waana kala hadli doonaa dadka raadiyaha maxalligaan haddii la yidhaha kala hadli doonaa aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum.